dhegaystayaal maansada soomaalida iyo hababka wax loogu curiyo oo ku kooban gabayga geeraarka jiiftada iyo heesaha dhaqanka ayaa la soo gaaray abbaaraha dabayaaqadii 1940nadii qarnigii 20aad maalin isla xilligaas ka mid ah ayaa meel boorama iyo jabuuti u dhaxaysa waxaa ku jabay baa la yidhi gaari uu wada ka ahaa nin cabdisiinamo la odhan jiray allah u naxariistee dabadeedna kolkii uu isagu cillad bixin waayey aqoonta farsamada baabuurta cid ku dhaantaana ay waddada ku soo mari weyday ayay noqotay goobtaas cidla ciilsirada ah inuu dhowr habeen ku nagaado malahayga gaarigiina ka tegi waa meeshiina wuu ku cidlooday dabadeedna sida la malayn karo wuxuu u baahday wax uu ku madadaasho markaas buu laacay tanag agtiisa yiil oo birqalaxda baabuurku ay ugu jirtay isaga oo tanagii faraha ku garaacaya ayaa cod habdhac wanaagsan leh uga soo baxay markaas buu ku qaaday meelisyo cabasho ah oo xaaladdii uu ku sugnaa uu kaga calaacalayo wuxuu yidhi balwooy balwooy hoy balwooy waxaa i baleeyey baabuur balwooy balwooy hoy balwooy waxaa i baleeyey boorame isagu way ku dhaafaysaa isma lahayn waxayse noqotay hab hor leh oo isla markiiba loo bogay waa laga daba dhacay kolkii la maqlayba dhallinyaradiibaa inta la bowday magaalooyinkii ku fidisay haddiiba waxaa looga raystay dhaantada iyo batarku cayaarihii ay ka midka ahaayeen ee habeenkii oo keliya la tuman jiray welibana lala fogaan jiray waxaa la helay iyada oo la iska fadhiyo wax aqallada gudahooda lagu tuban karo hameen iyo dharaarna aan loo kala eegayn balwo ayaa loogu waqlalay gadaalkiina waxayba noqotay hooyada heesaha soomaalida ee casriga ah qalabka muusigana lagu tumo ha yeeshee sida la fili karo qaybaha bulshada soomaalidu dhaqankaas cusub ee soo kordhay uma ay wada bogin durbadiiba waayeelkiibaa sharaystay waxaase ugu daraa culimmadii diinta oo dagaal aan waanwaan lahayn kala hortagtay dadweynihii ayay kala dagaalameen waxay ugu macneeyeen balwadu inay tahay anshax diinta ka hor jeeda oo looga gol leeyahay uun dhallinyarada iyo hablaha da'da yar in lagu fasahaadiyo waxaaba jiray wadaadadii xilligaas wadaad ka mid ahaa oo qol uu isagu degganaa qol ka hooseeya laga dhigtay meel ay ku kulmaan kuna tuntaan dhallinyaradii heellada ku daadatay oo rag iyo dumarba lahaa qayrada muusigga iyo codka fannaaniinta ayuu u adkaysan waayey markuu damcay inuu waaniyena wayba ku jeesjeeseen dhegay jaraqna uma ay siin dharaartiina wuu ka cibaadaysan waayey habeenkiina wuu ka ladi waayey dabadeed wadaadkaas oo la odhan jiray sheekh maxamed xasan ayaa wuxuu tiriyey gabay carabi ah oo guud ahaan israacinta nolosha adduunyada uu dadka ku nacsiinayo hase ahaatee qaybaha ugu horreeya ayuu inta balwada balaayo ku fasiro iyada iyo inta ka daba dhacdayba ku cambaaraynayaa isaga oo weliba diinka baxna ku tuhmaya waxaa qasiidadiisii ka mid ahaa ilaahi yaa ilaahi irxam wasallimna min albalwa muluuku dahri qad saaduu washaaduu fii mabaaniiha wamaa wasaluu wamaa qatanuu wamaa naaluu manaaliiha famaa taalat walaa taabat liqaadiiha wa baaniiha faqowla allahi qad shahiduu famujrimuhaa akaabiruhaa fabaacu ddiina biddunyaa famaa rabixat tijaaratuha fabalwaa'un laqad daharat biafsaadin fashaw fiiha fadaacu lmaala fii lahwin walacibin fii makhaasiiha lifusaaqin qad ijtamacuu tabaahuu fii manaahiha faaghraahum wa aghwaahum nisaa'un qad tashaytanaha muddo gaaban kadib balwadii waa laga diga rogtay ama isla iyadii ayaa u xuubsiibatay heello oo xagga midhaha balwada kala mid ah kana kooban tixa miisaanka dhaantada lagu curiyo markaas bay ku luuqeeyeen iyaga oo u tumaya dhowr shay oo ka mid ah qalabka muusiga reer bariga waayadaasna dalka dibadaha ka soo galay gaar ahaan magaalada cadmeed waxaa qalabkaa ka mid ahaa kabanka dafka darbuugada iyo foorida erayadeeda ama meelisyada lagu qaado oo isku mid ah ayay haddana u sameeyeen laxamo kala duwan dabadeedna si loo kala garto
magac gaar ah ayay heello walba u bixiyeen. heellooyinkaas oo badnaa waxaa ka mid ahaa jawhariye luul, subcis, rifdoor, raaxeeye, ilo dheel, beel dilaacshe, jiib, saddex qayd iyo kuwo kale. ujeedda ahaan jacaylka oo qura ayuu hal abuurku heellooyinka kaga hadli jiray. taasina waxay sababtay in mararka qaarkood wadajirkooda loogu yeero qaraami ama qaraam oo afka carabiga jacaylku ah. waxay ku habeyn jireen codad aad u macaan, laguna qaado tuducyo gaagaaban iyo meelisyo dabacsan oo aad u gilgili kara, haba yaraatee dareemada qofkii codadka dhadhan kale macaansigooda uu eebbe wuxuun ka siiyey. badanaa dulucda midhaha heellada oo sida dhaantada meeliskeedu laba dhuudood ka kooban yahay waa calaacal aad u daran iyo jacayl mar walba oo hal dhinac la saxariirsan yahay. mar walba qofka aan jacaylka u dabcin ee midka jecel ku gacan sayra waxay raacin jireen nabsi oo ah awood dahsoon oo ay soomaalidu taqaan, awood u heelisa kolba ruuxii gardarro loogu taag sheegto, ama kolka laga waxroon yahay aan gacan la siin, ama iska dhaga tira qof u qayshaday oo dhibaatadiisa uu markaas wax kala qaban karo. tuducyadii ugu caansanaa ee heellada lagu qaadi jirayna waxaa ka mid ahaa halkaad qoontay way iqiiqdaayoo qofkii aan arko waan ka qadhiyaa, iskaasiiyey oo si qoro noqotee waan kuu samrayaa nabsiga sido, haddii aad ubax tahay mid aad u uroo udgoon badan baad ahaan layd, daruur qorraxdiiyo dabooshay cirkoo dabeed unkad iyo hilaac ku dartoo da'aysoo idoojisaa tahay, boggayga waran baad badheer ku jartoo bagaanad ii dishoonad ii bixin, ayaamaha nabsigu ma eexdaanoo iminka anigaa ilmaynahayee bilaynood adna maalin oydaa, wax badan busta saaray boogtaydoo markii ay bogsan weyday laybaray, nabsigu wuu dhaxaaya kuma dhaafoo ma dheeraadee wuu ku dhinac yaal. dhegaystayaal, allaha u naxariistay gabyaagii weynaa ee dhowaanta xijaabtay cabdulqaadir xirsi siyaad oo yomyom ku magac dheeraa ayaannu beri isla soo qaadanay murtida heellooyinka qaraamiga ah ka buuxda. markaasbuu wuxuu tusaale iigu soo qaaday nin ay saaxiib ahaayeen oo sulub cumar la odhan jiray, kana mid ahaa hal abuuradii midhaha heellooyinka odhan jiray. siduu yomyom ii sheegay, wuxuu sulub ahaa nin jacayl feentay oo harag iyo hilibba ka idleeyey. wuxuu u ekaa buu yidhi geed qallalay, dadkii horay u yiqiinna waxay ii sheegeen inaanu weligii guursan, waxa sidaa u engejiyeyna uu yahay jacayl soo maray xilligii uu dhallinyarada ahaa. yemim wuxuu igu yidhi waxaan sheekadaasna dhab u rumaystay markaan isu eegay ninka muuqaalkiisa iyo erayadiisii uu ku alaladay ee caanka noqday. anigoo sugayla ayaan weydiiyey erayadaasi kuwii ay ahaayeen, dabadeedna isaga oo ka yaaban inaanan aqoon ayuu yidhi, ma waxaanad maqal hed mooyee habaarba looma dhintee, haaduna subaxdii hortay ma kacdee, aniyo hilbahaygii kale hoyanne, labaysu hilowday hayga hadhee, hamoy beene sawtan la i helay. dhegaystayaal, codkaas miyirka qaadka leh waxaa allaha u naxariistay 1997 xamar lagaga qabtay xaliimo khaliif magool oo ka mid ahayd fanaaniintii ragga iyo dumarkaba lahayd ee heellada iyo guud ahaanba fankeeda casriga ah soomaalida jeclaysiisay. cuudka ama kabankana waxaa u tumaayey maxamuud ismaaciil xudaydi oo isna amiirul cuud goobaha fanka soomaalida looga yaqiin, haatanna